انت اللي جالسه ويل كان nimankii dilaa la soo qabanaya lixdii toori oo la gelinayaa sidii soo kala isbitaal la dhigaya labadii hablood baa la isku soo saaraya gabadhan makaayilku 7 naagood bay soo qaxaysanaysa ayaantii qaawinaysa wajiga ka xagxaganaysa video bay ka duubaysaa birtii bay soo qaadanaysaa ha waa cadaalad ayaan taa hadaa tiraahdo waa ku wadanaa laakiin ninkaan hadii la yiraahdo ninkaan nin ha loo diro naagtii 7 qof dishayna naag ha loo saaro taas cadaalad ma noqonayso ma inta cadaalad darro weeyaan cadaalad darro weey 7 naagood oo gabadhan dishaa la keenaya bir baa loo dhiibaya kamarada la inagu tusaya iyadoo loo dhiibaya kala dhacbaa la leeyahay wiilkana wiilashigana waa la tooreynaya saasa isbitaalka lagu wada gelaya waa dhagtaas waa arrin aad u fiican Allah bisinka na xasuuq waad ka ayaanay maanta xasuuq waad ka sheekaynaysaa kuma jirno annagu xasuuq bini aadamtinimadii way dhaaftay bir haddii la isu qaadanaya ayaa والله إن هذا إن تابع يقول قرنت هاي ما خيري وحي فالحين بجبر على لوجس بيه أنا وقعد بنوح مع ذي ويحنتا والله ما على سنة أنا جبر على وجهي جلست الله قالي مدة كرفيري وجيبان دعوة ولي أدنى وجهي حاجة جدا لكن أنا واحد دي ما تقعنا أو والله الدمير كي يقدر رواء المية أنت لقفته أو بير مدح لقى قراعي يصف له قر إني راح ضيان لك رقبان ضد كلا يان لك القبول اليهود بقى مين الدمير لهين عربي عربي نقول كتالا والله أنا أدونك قف كانوا نعمها هدوا بيجوا سيدوش كفولو الدمير كي يمسين كرينا المدح بيرك قراعه sababta ma ku sheega gabadha mar hore la jilciyay waa gabadh mar hore la soo jilciyay ma garanaysaa markay jilciyeen ayay video ka duubeen oo ay dhulka gashay laba qof iskama galgashay 10 qof naag soo qofku xarakaad ma sameeyay xarakaad sameeyay gabadha saasay uga bidhbidhsiinaysa waa inaan mar hore la jafa waxaan ku yiri de raaxada laga bedelay oo iyadiiba markii la jilciyay anaga noo soo duubayaan ma caruur baanu nahay inaadeer maya inaadeer soo dhawow inaadeer qaali soo dhawow assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhawow waa dhuha baa wax yar ma ku darsan karaa yaa hadhiiba fikirkaaga wiilkan u soo ducee wiilkan la dilay alla wallaahi wiilkan aadaa ooga naxay dembi ma lahayn asaga ila taabta la dila ma aheen wallaahi aadaa ooga naxay wiilka ilaahay caafiyo horta u duceeyo walaalayaal qofkii soo gala ha u duceeyo waa wiil waxba galabsan walaashiisa qaladka iska lahayd asaga ilaaha caafiyo waa qalada lagu dilay waa la dulmiyay ilaaha caafiyo dhaawacna saqri ilaaha ooga soo dhiga insha Allah waxa sugaynaa asaga soo hadlo fiicnaade insha Allah qof walba dareemi kara qof waxba aageysanin ani gabadhaas waxaan dhila ayda sharciga hala maray wanaa si xunay gabadh u gashay subhanallah say walaa qof walaasheed tabir u soo qaat walaal mar waaya waxaan dhaa Soomaali bahal ma naqday walaalayaal anu waan yaabe ساقف إتابر أسقط وقفن كرتا أنا مدة قف تقدير أيوة بيرك كجراعة أيوة ما أنت نقيلنا أيوة إسكادي جاي اللي باح وفلي والله ذا ما يطلبات أباي وحاس دافيري قبل أوي قلدم كلا كل ضد كماشي تاجن سيدول مجا أباي إسكو راعي كلا هالقف اللي إسكو تيجو كاميرا لقى دوو برلودي بس وحاس وقف ولا على إسكو تيجي كلا هالقف أنا تاسنو أسوير صدا أيام wanaagsan su'aasha ayaanay mis weydiiseen abaa su'aasha mis weydiiseen iikaad wiilkana una su'aasha weeye inaad waan ka maqnaaye ويران هذا قبل لي ما تقنا إن هذا يران هذا كود عي قفت ما ضوضتي يقرص هذا قال لي أياني هرت واحد در إن كان وإن يربى ليري أنا يروها ويل شقيستوها وأنت سود كمان نيروبي كله أياني حتى واحد كلام مقلة مراكن الدكامو كلها إن كايرو سوكا عيوها نرشة عصب وبلابتي مركا دمر إن هذا أياني دمر ماشاني وهذا لو بقولوا كيلا سي باستو عنيين يحلون سقعنيه وذا كبري إن كاوتين وحلو بس أرتا وهباروي وكحما بقول كودي هيا وحوي إن كان وح وقلب صدي إلا هذا لما هيو إن كاس وإن هذا سوق عيوها قروضها كم قطعوش دا وكل لباتن كم وينا نشق يستنى وها بل لا أن يكون شيء صومالي وحوي
naaga islaamaha 200 oo kiilo ah in adeeray Nairobi yaa hoteelada ku wada jira bal maxaa meesha geeyay anigu hulle inka u soo duceynaya wallahi waana ka naxay wax laga naxay way tahay ayaanay halo Umar oo ra'yi baa soo jeedinay maadaama xaalad aad iyo aad u daran ku jiro oo meesha khatarta la geeyay oo uu aad iyo aad Ilaahay caafiyo sakaraad yahay raggii la yahay baxsan reerka reer warfaa la dhahayo ma dhihi lahayd annaga fikirka cadaaladdan ka shaqeynayna ma dhihi lahayd inta wiilkana wiilashi loo keeno toori geliyo isbitaalka la dhigo ayaan dhalad la soo kaxeeyo gabadhii makaay 7 naagood oo dilay iyo raggii oo kale ay soo kaxaysato ayaan dhalad bir loo dhiibo loo legda ayaan dhalad bir madaxa lagala dhaco wajiga laga xagxagto cadaaladdu soo saa kuma jirto wiilkana wiilashi ay u dilo oo toori loo gelgeliyo ayaanay horta ayaanay aan sheekay walaal horta way fiicanta anigu laakiin waxaan dhihi lahaa gabadha ayaan dhalada iyo ninka hawiyo qaba ninka video duubaye oo kulay waxa la yiri waa nin hawiya la yiri iyo walaal iyo gabadha ayaan dhalada iyo wiilkani dadka dilay in la soo qabto oo xabiska Mandheere ku yaala Nairobi xabisada ugu xun baa ku yaala in la geeyo oo 10 sano lagu xiraan rabi lahaa taasaan kaga safaransan hawiye maniga gabadha kamarada ka duubaya hawiye inaad waxaas waxba kama jiro ummadda marka maxaa meel kale loo aadayaa kaama laga shaqeeyo inuu dadku dado waaye dooniga ninkii cuni lahaa ma bukaaliyo dhiig islaam la saari ogaadeen baa makaahil baa waxaan isdilayay kuwii macal caruurtii bay wateen reer warfaa bay ahaayeen kamarada ayaa noogu dhiibay waaye yaa kamarada noogu dhiibay soo dhexgeliyay isaga ogaadeen cadaaladda ugu fudud oo dhihi lahaa la sameeyo waxa weeyaan wiilkana raggii ha loo laayo oo wiilkana raggii tooriyay oo kale rag kale oo makaahil la soo qabto kuwa kale oo makaahil 6 tooriyadood wiilkan la geliyo hal la geliyo isbitaalka uu hadda jiifay hal la geeyo wiilashaas ayaan dhaladna la soo qabto gabadhan makaahilkana ha soo kaxaysato 7 qofood gabadhan maartay ha loo dhiibo bir ha loo dhiibo ayaan dhalad madaxa kala dhac la dhaho wajiga ka xagxagaha la dhaho kulligood saa isbitaalka ku galan weeye markaas ayaana ka dhaxgalo inaad u kaado waa ka degayaaye ayaana waxa ku sheegay horta sharci baa jira meeshani adduunkana sharci baa maamula gowde marka anigu horta ra'yiga soo jeedisay waxa weeye waa ra'yi waxa weeye kulli waa isku baabaaya qabiil baa isku baabaaya gowde laakiin anigu ayaana waxa ka jeclaan lahaa sharciga in la tigsado oo Kenya oo runtii gabadha ayaan horta naagta la soo qabto gabadha in la soo qabtaan jeclaan lahaa oo xabiska la dhigo oo maxkamad la saaraan jeclaan lahaa ninka cajalada watay oo la duubayna in la soo qabto jeclaan lahaa inanka miskiinka ah walaalo adiga cajaladkaaga ga dhigin meesha qof baa dhiman raba fiiri adiga cajalad la duubay iyo gabadh video laga soo dhigay waxaas waa iisi weeyaan nafta koomaad fahmi wiilkani meelaha xaaladda degdeg ku jira nafta kooma ku jirta adintaad videoga hadii noqdo gudaqa maxaa la foolay haday timaad gudaqarsiime had soo maaha waa gartay aniga waxa ugu samay kara fiiri maxaa la yiri maxaa ku taal wuxuu ku gaarsiyo qofka wixiisa gaarsiha wana badin ha ugana yareen soo maaha waa gartay wiilal makaahila u yimid wiilkan wiilal ah loo tooriyeeyo makaahilo Nairobi jooga hal la tooriyeeyo deenaad waxa way taadon mid dad kale ayaana ay kaada cadaalad wiilal reer wafaay ha ka caano Nairobi jooga wiilal makaahila hal la tooriyeeyo markii koomada ha galaan oo meesha ku jira ha galaan ayaan dadka la soo qabto gabadhii makaahilkeeda la soo kaxeeyo gabadhii makaahilkeed bir ha loo dhiibo ayaan dhalad ha loo legdo kadibna madaxa ha kala dhacdo kulligood saa isbitaalka ku tagaan kadibna way kala qabaan ayaana hadalka inta dambe inaad kugu raacsanahay naagtan fursad in la soo qabto gabadha loo dilo oo inay korto anigu waa jeclaan lahaa laakiin ay wiilasha masaakiinta waxba aan geysan taasaan ka soo horjeeda dad masaakiina kaniba soo masaakiin ma wiilkani ba soo masaakiin ma kaniba muxuu geystay in dariiqu iska marayay waa lagu qaldamay ina kale waa lagu qaldamay horta ina sharcina waa jira meesha horta anigu waa ka degaya ala kulli xaal meesha waa assalaamu calaykum wa salaam dhamaantiin ku soco haya cadaaladda ugu fiican waa sida Allah hadii aan cadaalad laga dheela cadaaladda ugu fiican baan ku ayaane fiiri ayaan hadda wiilkan maadaama asoo wax geysan la dilay aan ka naxsanahay mid kale wax dilin hadii la dilo saa amal ma abayso xumaatada ma badanayso dhibaatada ma badanayso hadii qof kale la dilo hadda kana aan ka naxsanahay hadii mid kale istaal la soo siixi ka waran aba kama siinayno sidiisoo kale baa isbitaalka la dhigayaa maxaa faa'iido marka qabtaa
inta la isku yimaado gabadhi ayaan dhalayna gabadhi waa loo lagday moogtahay intay wejiga ku dhigtay inteedii baa lagu dhigaa birtay kala dhacay waa layna maqashiina iyadoo la dhacaysa qabo maya ani waxaan qabaa xataa mataqaana ayaanay xataa kuwa ku fiirsanay dembi ay ku leeyihiin ma fahantay aniga taalla yaa fiira ba ayaan wax yar dhageyso taalla yaa waxay tahay mataqaanaa gabadha ayaan qalad way samayn kartaa ma fahantay ciil way qabi kartaa laakiin intaasoo qof xataa nin ku jiro se iskugu raaceen gabadha in la legdo oo bir loo soo qaato sidii ogaanta loo galo la duubo say waxaasoo qalad iskugu raaceen miyay bani aadanimo jirin miyay soomaalinimo jirin miyay muslimnimo jirin maxaa qaldan maxaa naga qaldan marta annaga xataa gaalka saa looma dilay maxaa qaldan asalaamu calaykum عليكم السلام aan mar waa isbuxaan dheh bahalla may naqday Soomaali idinka fikirkiina dhiibta ay ku socda ayaanay dhammaantiin walaal waan idin salaamay hadda kolley dee wixii ayaan dhal samayn kartay way samaysay oo haddaynan dib ugu noqonno waxaan u malaynayaa waaba waqtigu may nagaga ciyaaraysaa laakiin sheekada hadda ayaan aad baan ugu qoslo waxay rabtay in sheekada bareeja laga dhigo waxay tiri kontan ha loo soo qabto والله واسيد اللي وكل بكسل لكن أيانا ما دعي سينا ذا المعان والله واسيد أقف فيها هذا وحلا بتشين أنك ندد بند الله إنه نبض خلق عظم ها مركا هو رنتا يسطور بشكل ونقول الله هيد لكن هذا شكل ولا الله يحماته ده كل قبل دين ويجاري سما دام ويلش واحد رأي ببحث ذنب أو هذا أينا ودن كي آذين وحنو ملاينا يا شكل هذا كسيف فالشون تهاي sheekadu markii hore sheekadu hadday ka sii fool xun tahay maxaa markii hore gacan bay ku bilaabatay iyo bir toori bay gaadhay waxaan ka baqayaa hadda sheekadu xabad inay noqoto ma garatay wiilkaas aniga saaka la ila soo hadlay wiilkaas ilaahay horta ilaahay caafiyo ma ka war haysaa wiilku waa sakaraad baa la yiri ilaahay wallahi kulli wiilku waxa la igu yiri walaalle ragga waxa la igu yiri 4 nin mise 5 nin bay ahaayeen baa la igu yiri midda labaad ayaanay hadda adoo dukaanka meel ka soo baxay oo iska socdo oo khabaar maafishaha walaal haday xataa laba qof ku disho oo si naxariis darro ah ku dishay xaaladaadu halis galaysa 5 qof markay maxaa la dhahay oo rag ah oodan wixii iska dhaadayno nin dagaal xataa is ilaalinayo cararaya aadan ahayn hareeraha markii sidii maxaa la dhahay balaayadii lagaaga bilaabo mindi walaal waxaan leeyahay haduuba nool yahay hadduu noolaado wiilkaasi waxaa la igu yidhi dadkii aadka ugu dhadhawaayay u tegay qadar buu u noolaan karaa wiilkaasi marka midda labaad waxaa lagu leeyahay wiilkaasi arrintan ayaanay xataa inuu maaragtay hadal xataa ku yeesho wuu diidaa la yidhi muraara dilaac buuba ahaa baa la yidhaahday qof madluuna iska socda madluun qof oo iska socda yacni hadalkiibaa xataa ka guuraa lagu leeyahay wiilkaas muraara dilaaciisa oo waxayba ku muransanaayeenba inayba dib reerkanba inuuba reerka dhanba ka taloobaa laga cabsanayay yacni siduu u qaracmay yaxyaxba waxaa la yidhi magaalada lambari la'aa marka dee waxaa la yidhaha dabka munaafiq shido mu'min baa ku gubta ma og tahay isagii bay walaal la saabaysay haddana sheekadu maalintii hore waxaan ku idhi aad hadda arrinta ka hadlaysay dhahaysay aad gabadhan maxaa la dhahayay la dilay aynu ka hadlaynay aynu reabtigana u nahay dee in adeerteenna ah ilaahay arrintan haynaga qaboojiya arrintuba qurux badna waayo labada reer ba anigu waani ku dhahayay labada reerba waxaan u malaynay inaysan maaragtay deen sheekadu aynu qabow kusoo gabagaboobayna laakiin sidii aynu u malaynaynin unbay noqotay hadda sheekadu aniga aaminsanahay sheekadu hadday meeshan xaaladan ay marayso hadda wiilku yaa uma malaynaya inay qaboobayso nimankiina de afrika waxay aadeen afrika dhegeyse nimankiina wadankii ogaadeen yay aadeen walaala macaan dee gabadh wiilkan dadkii dhalayna waa ka horeeyaan dee reer kalena deegaan ahaan waaba isu xigaan waa laisdhex degayaho meel laguma kala maqno marka bir bay ku bilaabatay gacan iyo bir bay ku bilaabatay toori bay gaadhay sheekadu aan waxaan ka baqayaa rag badan oo hadda maanta nool inay aakhire u hoydaan baan ka cabsani haddii la qaban lahaa wuxun bay noqon lahayd haddii hadda raggan 5 nin la qaban lahaa wuxun bay noqon lahayd laakiin mishin la soo degay oo maalmo dhan laga shaqaynayay oo iyagana dadka innaga waxay naga dhalaxsanay naagaa isdilay maadaama naaga isdileen wiilkii ayaan dhalad walaalkeeda ahana la xiray ee gabadhu magacawday
wiilkan hawiyana yaan lagu dambaabin wiilkan wiilkan kuma jiro ummadda yaan dhiig islaan la saray anigu aniga hadda dhahay wiilkaasi walaalayaalow waxaan qofka ibni aadanka dhiig in qofka la hafro iyo inaad xabad ku dhufato waa isku mid wiilkaasi ogaadeen baa meeshan isku baaba'ay ogaadeen baa is haysta wiilkaasi waa wiil maxaa la dhahaaye sharaf leh arrintan lukuma laha yan beerta lasoo gelin wiilkan yaama lagu soo dhex darinba yaama lasoo magacaabin wiilkan anigu waa ka soo horjeedaa wiilka in dusha laga saaro ogaadeen baa haysta ogaadeen baa qabaa yaan dusha laga saaray wuxuuna sameeyay shuqul walaalo kuma laha ma nin maanta nin Soomaali oo dhaqan garanayo oo 20 jir gaadhay ba gabadh in adeertay han soo dilahay kaale ii raaco fiidiyoo kasoo wata aqliga saliimka ha shaqeeyo macquul ma aha wax dhici karana ma aha hadduu qofka xataa handikaag ugu bas yeelaynin ban reer dhan oo ku xilla inuu laba gabdhood oo walaalo ahaayo shalay markuu guursanayay gabadhii garab taagnay si kasta xaligeed dheer iyo geed gacan buu u fulay inuu heshiisiyaa la yiri laakiin de ilaahay baa inta ka wadwaday anaga cadaalad darro ma rabno wiilka islaameedna in hawiyaha lagu xadgudbo ma rabno dhiig islaam una gelina in la geliyo waa qalad intii balaayada laga qaada reerahan iscunaya iyagu ilaahay isku diray inaan inagii dhibaatadeena iska fogeyn wiil islaamad dakada ka saar war balaayadu waa ogaadeene ilaahay buurkooda burcad haysu mariyo balaayadan waraabe iscunaysa waa hunna waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيتين ودوهاي horta wiilka ha loo duceeyo allaha caafiyo muhiimada horta waxaa asaga in loo duceeyo mar walbana ku dara ilaahay subxaana watacaala inuu ka kiciyo waa wiil yar nolol u baahan adduunyadana mustaqbal iyo future kale hadduu wixii dulmi ku dhacana ilaahay wuu la jiraya qofka ilaahay ummadda ilaahay qofka dulmiya ilaahay wuu ka badbaadiya marka kii ka badbaada ka horba anigu saasa abtigay mid ah ceed birda looga keenayo la soo dilo saas wiil intii la qabsaday caloosha mindi kaa laguma dhufanin waa lagu joogsaday sidii geeli waa lagu joogsaday marka si calooshii intii uur ku jirkeed naqatay madow si maalinba kis loo goonay muqdisho ku dhinto loo soo qaaday marka way jirtaa dhibaatada saas oo kale ah waxay fidna dumar waxay ka bilaabatana horta ma degto wuxuu dumar rag baa ku dhimanaya qabriga loo galayaa because dumarku waa masiibo arintaa waagiyaa la rabay in la xaliyo inay xalismeyna waa la ogaa oo waxaan la dhaafeen waxaan arkaya islaan Mareykan joogto oo soo dhexgashay oo dhahayso 9 wiilba waa la bireen doonaa 9 wiil inaad arkin aad u maleynayaanay 9 wiilba ama waad la qaxibay tira ama laga wada birayn marka anigu waxaan leeyahay qadarka waxa wixii qadar waaye marka wiilkan miskiinka ah wixii dambaba xal ha ahaatee horta asaga allaha caafiyo marka ugu muhiimsanba waa qof miskiin ah waa qof aan shaqo maqlay waaye qof aan shaqo ku lahayn weeye waa qof ku dhacay dhibka marka muhiimadan waxay tahay maanta waxaa xanuun qabo ninkii dilaa xanuun qabo kii dilo cararay asna bariiska jiif ku cuni maayo cabsiga ku cuni oo wuxuu iska fiirin geesihiis waa asna inuu ishubeeyaa waxay dhulka ugu carareen waxay tahay hub qaato oo isdifaaca waaye barkeekeeyo hub kuma qaadan karaan mabaan marka asagana ha loo duceeyo markasta ha loo duceeyo ilaahay subxaana watacaala inuu ka kiciyo waxaan waa qadar socdo waa wixii qadar socdo qof ma celin karto ama wixii inta ku ekaan doonto waqti way ku ekaan doontaa marka insha Allah waa ku salaamayaa intaasaan ku leeyahay hadduu ilaahay yiraahdo raali noqon najmi waa lagaa booday haye walaalkaan waaye najmi ku socod halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ku soco walaal maxaad ku dhiibay maxaad ku maxaad abeelay abaa wiilka waxaa waaye aad baa ugu xumahay wax loo geystay waxaan leeyahay ilaahay ha caafiyo saan maqlay wiilka wiil oo waxba shaqii shuqul ku lahayn waaye wiil iska maskiin ah marka aad iyo aad ugu naxay ani ayaan haddii wax la gaarsiin lahaa kama naxin lahaa laakiin wiilka aad iyo aad ugu naxay ilaahay ha caafiyo amiin haye abaa waan kasii gudbay caafimaad u rajeynaya insha Allah wiilka reer dalo oo ku socoynaya ayaanay ugaasoy waa ku salaamay seetay walaala qaad walaal qaar soo dhawow seed aragta arrinkan waa arrin fool xun oo reerka ma aragtay dakaradan ay kala galeen labada reer waa arrin fool xun ma garatay laakiin waxaan leeyahay anigu odayadii aaway dhaqanka ee Nairobi fadhiyay ma
dhalinyarada bay xakameyn waayeen dhalinyarada may xakameeyaan maxaa dhacay may xakamo ka hadda adiga arkaya hadda xaaladda wiilku ilaahay horta caafiyo waxa xaalad daran buu marayaa marka adiga amiin amiin saantaada reer warfa maxay sameyn doonaan baad sidaa talaabada ugu horeysa qaadi doontaa maxay tahay kolley wax qurxan ma ahan oo reer warfa iyo makaahilba wax u qurxan ma ahan oo labada reerba kolley dakana unbaa la kala galay oo dakanana waad ogtahay dee soomaali baa leeyahay oo meel walba la tago mid kale unbaa lagu ugaarsan marka wax wanaagsan ma waa wax fool xun ma garato waa wax fool xun labada reerba u fool xun waxay ahayd odayadu marka arkay inay sheekada dhacday inay gabadhii lasoo qabto la xiro reerka waxay raalli ku yihiin reerkii gabadhii laga dilay gabadhii wax dishay inay carartamaayeen oo lasoo qabto oo la keeno oo tolkeed keenaan oo la wada fariisto dee hadda sheekadu farahayba kasii baxdayba dee hadda dhiig baaba meesha yimid oo nin baaba isbitaal u yaallo marka allaha caafiyo horta dadkaana alla maaragtay ha kala qaboojiyo waa dad tola waa dad walaalo waa dad wada joogo meelna kala tegi maayaan oo meel walba ay wada joogaan kismaayo wada joogaan gaarisay wada joogaan jigjigay wada joogaan meel walbay wada joogaan qoraxay bay wada joogaan nairobida waa kaa marka waxaan waa foolxuma mid kale waxaan arkaya in halkaas soo karo maaragtay lahaa wiilkii gabadha qabay baa waxaa ka dambe orniyo wiilkaa yaanan maaragtay eeduna lahayn dusha yaan laga saarin foolxumadan iyo waxaan dhiig daato wax faa'iiduu leeyahay malahan dhiig hore usoo daatay waa kaa maanta daatay wax wanaago hadda laga keenay malahan ma garatay marka waxaan dhihi lahaa anigu odayada shaqadoodii bay gabeen odayada nairobi fadhiya ee maaragtay reerka maaragtay odayada u ah waa odaya shaqa gabe waa in laga wada qaado kii ugaas waa in ugaasnimada laga qaado kii suldaan waa in suldaannimada laga qaado waa odayada waa shaqadooday gabeen laana dhalinyarada ayagaa xakameyn waaye ayagaa kala qaban waaye ayagaa isku eegay dee waatan maanta taagan dee marka allaha kala qaboojiye waa tolkeen adi ahaantaada markaad saansaanteeda aragto maadaama wax odayaal ku dhex jirin ay kula muuqataa wallaahi saansaanta dee ayaana waad ogtay dadkan ka dhalanay waa dad iska dhiig kulow waa dad aanan maaragtay mar walba waad ogtahay dee weligeed baa la istiri jiray waana way dhici jirto reerahabu isku baabi'i jirayba wax yar intuu dab yar oo wax yar qalad yar dhaca ayaa la isku baabi'i jiray marka allah ha kala hayo dadkeena waad ogtaa iska gacan fudud yihiin ma garata adigana ugaasooy maanta waxaad tiri hal la soo wada keeno oo ugaasnimadii waa lagaala noqday adigu naftirkaaga fikirkaan soo jeediyey wuxuu ahaa nacam waa la kala qabaa aan sameeyey may hadda lama kala qabo wiilasha horta wax wanaagsan may samayno ani waxay ahayd in gabadha lasoo qabto oo reerka waxay raalli ku yihiin reerkii gabadha laga dilay waxay raalli ku yihiin loo sameeyo gabadha haddii la xirayo in la xiray ahayd ma garatay meesha sharci baa yaallo wadan sharci yaallo wey ma garatay reerkana may soo qaban weynine waa ayaga edabdaradooda wey ma garatay iyo gabadha may soo qaban weyno meel walbay gasho soo qaban kareen gabadhii wax dishay intay keenaan gabadha loo xiro markaa waa la galo oo maxaad rabtaa ma lagu xukumaya oo ma lagu xiraya mise dee wixii soomaali weligeed u taale oo tolka u taale inay gacmo hoos baa loo dhaqaya in loo dhaqay ahayd laakiin hadda kolley dhiig baa yaallo wiil baa la dilay nin baa isbitaal yaallo wiil baa dhiiggiisa dhulka ku dhacay marka allah ha fududay sheekada ma fudude siday dadka moodayaan ma ahan way degdegeen ma la isdhihi kara aad bay arrinka ugu degdegeen aad bay ugu degdegeen waa laakiin reerku waad ogtahay dee reerka nala dhashay waa iska weligood bay dhiig ku lulaay ma garatay waa marka way degdegeen odayadana maaragtay aniga waxaan dhihi lahaa odayada maaragtay gabay shaqadoodii odayada nairobi jooga shaqadoodii bay gabeen odaynimadii bay gabeen dhalinyaradu way kala qaban waayeen waa isku fiirsadeen marka odayada waa in laga wada qaado xilka laga wada xayuubiya ayagoo dhan dad xil u hayn kara reer maan reer dhan oo walaala oo wada dhashay in la kala qaban waayo sidaa isku dilaan oo sidaa isku baabi'iyaan dee waxa laga arka odayaasha meesha fadhiya ishooda laga arkay ma garatay dadka kalena siibal ayaanay waa dad kalaasay dadka kala sii walaala soo dhawaada ku socda saa usoo kala horreyseen ayaanay ku socda هاي أيام ما تسوي لك قصة ولا لا قرآن شعر مياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أيام قروح عيد بنكون سلام يا دي ولا لها قال جاي ماشي سارن ضمان يا أصحاب هذا وان سلام يا قرآن شعر ولا إن هذا هذا كان مهد علينا برنامج في عم بعد كله يسا ورطت ولا لها الدون بلجوجا بالآدم كانوا حاول يسيسو موضة ونكسنان كرو شر شيطان باكوجرا وحبا ضدك
ka dhexdhacaya bilaadan baana waan qaldamaynaa laakiin dadka walaalaha markay qaldamaan waxaa loo baahan yahay dad loo noqdo oo marjac inuu jiro oo xallin kara hawshaasi gabdhaha hawshoodii dhacday waan ka xumeen aad iyo aad baan uga xumeen farag baa la dhashay walaal wallahi qaar kulul baa la dhashay hadda meel dee waa la helayaa Soomaaliya fidmada naagu ma qabowdo in adeer horta soo ma ogidin fidmada naagu ma qabowdo waa inkaar wallaahi ma qabowdo laakiin in adeer haddaad naag is haysaan naagta si bareeraa u dil ama ha ku disho ama aad wax dishid laakiin inaad meeshii walaalaha soo gelisid waa qalad waa fulaynimo manjaa ii qabo waa fulaynimo laakiin in adeer ma caanidee warfaadi ayaga maxaa aniga waxaan isdhahayaa war fiiriya ilaahow ayaan may hadasho qolal bay soo dhibkan ayaanba ma lahayn warfaadi si kaga joogay miyay cabsadeen ma waxay ka cabsadeen axmed rashiid miyaa mise makaayinka nairobi waxay ma arkaysid axmed rashiid dadku dilo horta qalad baa laga aaminsan yahay ma aha dadka caadiga ayaan hadday hadli lahaydna 10 qol bay soo furan lahayd horta may axmed qabiil uma magacaabo Soomaaliya oo dhan buu meesha wax u joogaa axmed rashiid khalad baa laga aaminsan yahay waaba la yaaba dadka yiraahdo axmed rashiid nin qabiil ma aha Soomaaliya oo dhan buu Soomaalina dhan buu matalaa kow dhaha marka anigu waxaan isleeyahay ayaan qaladkaanba ayaan waxa ka sii daran oo qaladkan sii kulay nimankii naag soo raacay naag la dagaalay dhibkaan dhanba nimankaas iskale waxaan leeyahay marka nimankaas waa in maxkamadda soo taagaa meel tagaanba in laga Ethiopia laga dacweyn karaa maxaa kii shar dawlad baa ka jirta Soomaaliya qofka dila Ethiopia laga dacweeyaa ma nimankii naagta soo raacay ها ده ولا صانيك دبك هذا واحد كان سنين يقول كان محسن كل عاي دي أنا قمشي دبك نجمة كل عاي نجمة ناقوى إسكر ريبل هذا هذا لقعت كذا وركم ما ودافع سوق السرجة هدي تاس لقعت كذا سوق السرجة ما ودافع أنا قد مالك سنغال إسكت بحشي سرجة ما لا يدقين يا قبلها ها سوق السرجة وركم ما ودافع ناقد هذا أما أيان أما نعيم هذا سيكذا لكن رجع صورة مالك سيناغ نيروبي ناقوس وجهك iska bedelayaan Nairobi waa meel wajiga la iskaga bedela wax kale laga ma qabtaba anu gabdho waxaan aqaanaa gabdho waxaan aqaanaa nima wasiirada gabdho dagaal waxba laga soo qaadin cadawga hanoo jabinay hadda laba qof haday istagaasho waa token Allah kala in la buunbuuniyo anigu ma rabiba in wax la buunbuuniyo ka soo furan ma aha maanta waxaan naga ceeb badan ninkii naag soo raacay oo maanta yaa bamba loo tacsiyeeyo ma aha wuu dhib waxa la yiri waa sakaraad loo tacsiyeeyo ma aha wiilka masaakiin na waxa iska daayo waa tolka u ducay ayaanay wiilku ma dhimanayo habaarin ma habaarayo laakiin wiilka soo ilaahay uu caafiso inay xaqiisa u soo dhicin ma hoon dhahno warfaayo meesha ka kaca ما يرون ما ينورفا ماشي ورفا كيا مدحية من جوا واكيها يسومو أوجد مدحية شعب واكيها لكن دبك ترى وحويا ورا الوحكة الوادرنية رئيس الشيء وضد المعذرة ولا كلا دحقة يا وين دمارة إذا هيدن كيس ما لا تبي كلام مخايل وقاعدين نرجع وقارن ما لا تبي كلام مخايل أود إليه sheekada halka ah lagu damiyo wiilkan waxa dilay inay soo gaadeen ahayn baa laga yaabaa ma aragtay wax ay biskootad najmo waa laga yaabaa xawale soo isgaliya Kenya dadka caraysan isla ma mari karaan dadka gabadha dila Soomaaliya dhan baa ka caraysan waa makaahila dadka la dusha ka saarana dhiig islaam ma la sheega ma aragtay wax xiray gabadha ma ka xidna waa gabadha ilaayadeeda weeyaan marka cid ma la xiro hadda cid ma loo xiro wiilkii ما يشتغل إنه كفانا ينبغي لأن بقول له دليل مركا ويلش الدليل ومكاهيل ويلك ما فهمتين مركا ضغط الدليل أو ضغط عرضها بقى قارنا إلى هذا وح عدانا لما هي ما wax lagu faana baa inaad erkay bedilay wax lagu faana hadda kaya qofkii yaqaan soo ma ogidin in dad caruur wax tooreeyay ay jiraan oo dadka iska tooreeyaysa maanta maahan ma makaahil baa quruxay waadiga u diidayeen aniga
ما أنا ما مكاهيل إيو متكلا إيو منا ما بيهيب أنا هرت أقعدين بما بيهيب لكن وحنا من يا ما نصيب بابونينو هذا dadka dhexaysa war laga shidino ninka waxa laga yaabaa Soomaalida tan baa u caraysan ayaan meesheeda hadda ana suuqa sirti agtiisa dukaan ku leenahay meeshii ayaan haba dhowcila inta isku yimaadaan soo si iyo soo bi iyo naakro inta gaar ka saaca isku sawiraa ayaa dukaankeena maxay iskugu sawirayaan waxay isku sawirayaan aawa geesiyada gabadha dish ayaan way cartaa la yiri maxaa ka jira maba joogto ayaan maba joogto ayadina wuu xiran yahay la yiri ma run baa taas marka waxa inii sheegaa dadkaas xitaa ogaadeen xitaa ma ahan qabiil ma ahan laakiin waxa laga wada xumaaday inta wax aan Soomaali dhaqankeeda ka baxsan 7 qof inay gabar wada disho oo haddana waaba dhaqan hadda nagu soo kordhay hadda naag la hadli ka dhamale ninkaa u soo raacaya qaba inaad armiyari dhageyso marka adiga waxaad ka hadlaysaa gabadh la xafiidku waa wiil aad u fiiri markii ko ay noqoto koomo qof ku jira qof la xafiidka ka koomada sii daran macnaha waxa ma ka xumaanaya dhibkaanba waxa noo soo jiidaan dhahay maanta in wiil lana ka dilo isbitaal nin dhalinyaro maskiin oo shaqaysanay nimankii naagta soo raacaa baan u dood u qabaa kan koomada ku jira ayaanay waxaadan u arkin ninku de naag buu soo raacay naag baa madaxa laga dilay ayaduba kooma way geli kartaa si loo arkay baa loo jugeynay wallahi baa badbaashay maar karimo ogeyn abay karimo ogeyn ninka masaakiinka suuqlada dhana taqaana wiilka masaakiinka inaad artug hadii la waayo walaalkiis baa loo dilaa Soomaalidu dhaqanka wiilka yar waxa la yiri xataa waxa cabso waxa la yiri isagu shaqada kuma lahayn meel lagu dagaalo ogeyn dariiqu iska marayo ها ninka dadka nin oo shaqo ma ahan sida caadiga hadda hadii aan anigu wax dilo carrada walaalka hadii la helo waalidilay ama walaashay asaga laftigiisa inuu iska taxadaray ahaydo Soomaalidu dhaqankaas leedahay marka laba naagood oo isdilay goormayna arki jirno nin loo dilo muu islahayn waa lagu dilayaa adu goormay arki jirnay laba naagood isdilay soo raaca baay baa isdilay manaaki 10 qof dileen baa 10 qof aad disho suuqa sarti abay dadkii jooga oo loo hankiway markii hore saf loo soo maray ها أنا وحرك أنا يقول ما دحين بام حين كذا ما تطلع وين بعد كذا هذا كله علوان برتي ماذا حكي راعي سنا قولي بس ولا إنه دل والله فريو مع أنت شرفه دبك ما أنت ويل كان كل عاي جواد دبك كل عاي واحد واحد مسؤول كهرجي أيام صهر راعي رجع صدي عدالة شرط رجع أما إثيوبيا هدي آذن هدي كينيا شو أي محكمة لسوي تاجا because بريك ما الله يناقص صهر راعي نبى صهر راعي دراسة isla markii waxa saqajaanimo weeyaan wax Soomaalidu taqaano ma inanka yarka masaakiinka xamaalanaya gabadha miskiinta shaqaysanaysa anu dush waxaan ka saaray rag ayaan soo raacay ayaan ma wala dilha ma waxay dil lahayd suuq waana la shaqaysan la magaalada boqolna isdishaa joogta midda kale gabadha kale qofna lama joogin Soomaa ana hadda Kenya ma joogo mar hore igu dambeysay laakiin Kenya dhaqan suuqa dukaankeeda dhex fadhido dukaankeeda kaligeed dukaankeeda dhex fadhido Soomaaliya markay soo weerareen dadka xitaa dariska ah waa laga qaban waayay way galgalanaysaa dariska waxa cabsanayaan maxaa dariska waxa lagu dhahaa naagta soo dhaqaaqda wixii ku dhacay isku dhigtay at least dadka waardiyaha wixii lahaayeen sababta suuqyadu waardiye lahaan jireen maxaa Kenya waardiye wadatay ayada staff wadatay 7 qof bay ahaayeen ragga 3 oo banaanka u taagnaa qof wadatay oo waxaan ku ri labana qofkii disho 7 kana banaanka istaagto walaal maxaa cid baa ka celin kartaa dhaqan xumo waa la sooreeyay marka wala indha la kala soo baxaya idab darro weeyaan waxaas dadkan 7 qof waxa u soo taagay badana suuqa inay kan haduuna ku jirin oo aawna dadka maqlayn sida Soomaalidu dhaqankeeda qofkii hadaan anigu wax dilo oo lay waayo walaalkii baa la dilaa ha dhaqan xumadaas aan naqaanaa ogeysiis qofkii hal keeno ma yaqaanaan ninka yarka loo duceeyo gabadha walaashayna ayadana wax gaareen loo duceeyo dadka kale dadka dhibkan keenana ka dhex baxa dadka kale aan ugaadeen ka hayno ka dhex baxa sheekadan ugaadeen baa u taala qof aan ugaadeen hayno ma soo dhex gal kartid ma ogaadeen anagu ma ihiin wax sheekaduna waxay taala social media ina adeer aniga ogaadeen hal ma oo hadlayo ka dhex baxa wax heshiis ma jira baa ogaadeen hadii la heshiinayo ninka dhibku ma soo gaareen 3 bari 4 bari magaalada rumaha anagu hadda dagaal anu ma ka hadlayo yaan looga hadlin baan ku dhaqabil ninkan waa dhaqan xumo lagu soo korto Soomaali ahaan qabiil looga hadli karo ogaadeen in niman inaga soo raacay
ogaadeenna lama dhihi may karo niman ogaadeen inaalaysa soo raacay waa waa sax oo dhaqan xumo labada qof Soomaali oo kusoo istilay koray waa ogaadeen laakiin de walaal waa sheeko public taala ma aha hadda waxa in haa wixii ay cuqaal ogaadeen telefonka ka hadlay gurigaaga ku yaala qarso gabadha ay qaali ku qoran tahay tan kale ogaadeen bacidu kama hadlayna dee laba reer oo ogaadeen maba laga hadlahayo dhaqan ogaadeen miya 7 nin in 7 qof isdilay baa laga hadlayay in adeer annaga qof ku faraxsana meeshaan ma joogo ogaadeen waa talkaya kuma faraxsanin dhibaato inay soo gaadho haa ogaadeen oo dhanba ma aha walaa waa naag la dilay oo 10 qof dishay iyo wiil la dilay sida caadiga ah Soomaalidu qofkii qof dilay walaalkiisa la dilaa haa waa dhaqan xumo Soomaali oo dhan ay qabato dadka wiilka waa u ducaynaynaa ka udhahaya in ilaahay kala qaboojiyana ilaahay baynu uga baryaynaa dadkuna waa tol in la heshiiyaan rajaynaynaa aamiin insha Allah wallahi anigu kolley waxaan dhihi lahaa ninka waa in nin loo dilo aniga taladaas ilaa sidaas weeye maya walaal maya ha degdegin abaayo ayaanay hadhihi walaalta ninkaa nin looma dilayo waxaan oran lahaa labadii gabdhood ha laysu saaro labadii gabdhood inta taa waqti la siiyo markay soo ladnaato ha laysu daayo abay baash sidaa ku fiicnaanaysa anaa kuu sheegaya hadda wiilka waa la dilay makaayila loo dilay laysku soo saaraya sheekadu saasay ku macdahay markaa abaayo macaanto maalin walba markuu qofka ruux loo diraya gabadhii video baa laga duubay soo ma ahan waa in gabadhaas kalena video laga duubaa xaaladda la isu tuuraa haddii kale mar walba markay arko videogeedii social media yaalla qofku waa bini aadan markii cadaalad laga hadlayo wiilka wiilal baad waa in isagana wiilal sidiisoo kale dhaawac looga dhigaa markii dhaawac looga dhiga kadib labada gabdhood waa in la isku soo saaraa labada gabdhood marka waa inay isqaawiyaan ayaanay maxaa laga helayaa waayahe haddii waayahe laba talki haddii laba wiil laga dilo gabadha 7 qof baa dishay qaawisay walaa xaq haddii hadda han dhahno kale cadaalad dil fiir ayaana 7 lagu sii daaya dhakole cadaaladaan ka hadlaya cadaaladda 7 ayaa loo keenay 7 naagood hal la qaaday saas haddii cadaalad jirto 7 qof la keeno ayaan hadafeen inkani intay ahaayeen baa la keenaya ayaan baa la qaadanaya intana wiil baa loo dilay qofkii cadaaladda keeno markii hore haa saas oo kale haa waa caadi ninkaana in kii dilay qofkii dilay isagana intii la gaarsiiyo waryahay maxaa salaafooda